ayaa lagu soo celinayaa markii ugu horeysay la ansixiyay baarlamaankeena ugu horeeyay waa Soomaaliya region ikaadiya qodobka labaad bishaarada madaxweynuhu uu rabo inuu idin sheego maanta waxa weeyaan calankeeni originalka وليغا نين وسيره او وسير كجرا كللكا او وسير او كجرا ماشي او غنعسي هيستا او السي كشقيسنا او سكرت وطا او بريسك وطا او باسدا وطا او علالي وطا انغا ما مثلا جاد كالا غلي جادك شخصيا عينا حساب دد شخصيا اللي لو سيو ليلهي اغونا لو كرنا ور ما اغونا متعتور ما قنبرنا ما قان باسن مثلا جادك قالوا لا اغونا لو كرنا وركي خيرخيرها كاهي waxa laga keenay wadan kale kii xirxira ka waxa laga keenay wadan kale kii gaday waxa laga keenay wadan kale kii qaybinay waxa laga keenay wadan kale qaxootiyaha loo qaybay ilaa qaxootiyaha la tuulooyinka loo qaybay wadan kale laga keenay war adiga waayay ilmaatadaada iyo qaxootigaada iyo dadkaada dad wadan ku maxad siinaysa in la iska hor imaado maxay dadku u mashquulo gadoodo madax xisbiga dimuqraadiga Soomaalida oo ay qayb ka hayeen guddiga kormeerka iyo baadhisto waxa loo soo yahay in golaha dhaxa uu yahay hay'adda mas'uul u sareeyo hay'adda shaqooyinka xisbiga dabagalaysa inta u dhaxaysa labada shirweyne waa hay'adda labaad ee xisbiga ugu weyn golaha dhaxe oo sokorta wata oo bariiska wata oo baastada wata oo calalay wata anaga ma adna jaadka la galay jaadka shakhsiyan ayna hisaab dad shakhsiyan lagu siyo leeyahay aqoona lagu karna war meeqa aqoona ma tactuur meeqa nabarna
meeqaan ba'san lafan dalkeena waa inuu yahay xubin leh isxilqaan shaqo lagu tijaabiyey shaqo isla markaana ka keenay natiijooyin la taaban karo muddadii uu hawlaha u hayay ummadda waa inuu yahay xubin leh bislaansho siyaasadeed isla markaana leh karti xagga fulinta hawlaha xisbiga sidoo kalena yahay qof balaaqo leh ka dhaadhicin kara mabaadida xisbiga bulshada qaybaheeda kala duwan shuruudda saddexaad waxay la xidhiidhaa anshaxa xubinka waa inuu yahay qof ku leh bulshada iyo xubnaha xisbiga dhexdeeda kalsooni iyo magac fiican waa inuu yahay xubin si toos ah iyo si dadbanba aan uga qayb qaadanin ficiladii deegaanka ka dhacay ee maamul xumada musuqa ku xadgudubka xuquuqaha aadamaha qabyaaladda iyo isbeddel diidnimada waa inuu yahay xubin marka loo fiiriyo dhinaca shaqada uu hayo sidii la rabay u gudan kara xilka iyo waajibaadka golaha dhexe iyo guddiga baadhida